Bismillahirrahmanirrahiim. Waxaan muuqaalkan ku sharaxayaa synapsiga ardayda jaamacadda ee projectiga qalinjebinta diyaarinaysa waxyaabaha laga doonayo iyo waxa uu ku saabsan yahay baan kaga hadlaynaa. Qodobka ugu horeeya haddaan soo qaadan waxa weeye project title. Projectigaaga magaciisa ayaa lagu qoraa, wax kale isaga laguma qoro. Haddeertaan projectigan sidaad u jeedaan waxaa la yiraahdaa aqoon kaal online bookstore. Marka projectigana waa inuu magac leeyahay, waayo markii aad projectki samaynayso ama programka meel baa u samaynaysaa, meeshaas magaceeda ayaad ku qoraysaa. Qodobka labaad haddii aan galno waxa weeye about the project. Qodobka labaad wuxuu ku saabsan yahay projectigaaga. Hadduu ahaan lahaa online bookstore, hadduu ahaan lahaa fuel station management system, hadduu ahaan lahaa blood bank, waxa uu ku saabsan yahay introduction baa marka ka bixinaysaa. Qodobka saddexaad haddii aan u gudubno waxa uu ku saabsan yahay about the organization. Systemkan aad samaynayso ama programkan waxaad u samaynaysaa organization sax, waayo system markii la abuurayo sidiisaba waxaa loo sameeyaa problem solving, inuu problem hore u jiray xalliyo. Marka meesha aad u samaynayso baa ku qoraysaa ama uga hadlaysaa waxyaabaha ay qabato locationkeeda iyo waxyaabo adigu introduction kooban oo meeshaas ku saabsan baa qoraysaa, waliba hal paragraph ama laba paragraph aan ka badnayn. Qodobka afaraad haddii aan u gudagalno problem definition weeye, waxaan uu ka hadlaa laba qaybood. Systemkii hore uu isticmaali jiray organizationka u samaynayso projectiga waxa uu yahay buu ka hadlaa. Qaybta labaadna waxa weeye problemyadii jiray ee systemkaasi looga soo guuray loona samaynayo systemka cusub baa kaga hadlaysaa. Qodobka shanaad haddii aan u gudubgalno waxa uu ka hadlaa sana sidoo kale development requirements, hardware iyo software baan u kala qaadaynaa. Qayb sare ee hardware-ka waxaa looga hadlaa systemka aad samaysay computer noocee buu ku shaqeynayaa. Computerka waxa uu leeyahay processor, RAM iyo hard disk. Inta processor nooca uu u baahan yahay baa looga hadlaa qaybta koowaad. Inta RAM ama inta GB ee RAM uu u baahan yahay, sidoo kale hard disk inta GB intuu uga baahan yahay computerka baa looga hadlaa. Software-kana waxa weeye front end-ga iyo back end-ga baa looga hadlaa, iyo sidoo kale luqadda aad isticmaalayso. Sidoo kale waxaa meesha ka marneen Windows-ka ama operating system-ka aad isticmaalayso. Hadda systemkan waxa uu ku shaqeynayaa Windows 7, 8 iyo 10. Wixii ka hooseeya ama waagi hore la isticmaali jiray 7ka ka horeeyay macnaheedu waxa weeye kuma shaqeynayo. Qaybtan lixaad ee u dambeysana waxa weeye synapse ku saabsan proposed system in brief. Introduction-kii ama about the project waxyaabaha kaga soo hadashay qayb ka mid ah oo kooban ayaad ku qoraysaa. Wabillahi tawfiiq, intaas ayuu ku egyahay.